الدقة مقالة هرقيسة عبد الرحمن محمود عيديد سولتلكو أي حريقة كتشري قرون عصري أي أكاديمية عرورتا لغو تببريو كاسيو كويا لا دقمدا إبراهيم كودبوري مقالة هرقيسة مناسبة بلارن أولو سمي فريتان كقرون كي ولي أكاديمية أي وحا أوغو هورين بكهد ليس كريا كوزارو كوهل لي مسؤوليين قرون كان أي أكاديمية كوب كعاوينو بلامية سولتلكا كاب لوغو مقعدري أو وجودهان من بلو إلى دماد maalgeliyay maayarka caasimada mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid oo runtii ku amaanan sida quruxda badan ee qiimaha leh ee uu adeegyada dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uga qayb qaato habeen horun bay ahayd markii uu dhalinyarada 26 Juun Ibraahim Kodboriyo degmooyinka magaalada la kulmeeyay caawana wuxuu furayaa koobkan dhalinyarta cuslaatay loogu talagalay oo uu runtii isagu min bilow ilaa dhamaad maalgelinteeda leeyay ugana wado dhalinyarta aan balwada lahayn dhalinyarta aan wax kale lahayn ee balwadoodu ku bedatahay in uu dhiirigeliyo Khalid Jilani oo ah khabiir dhanka ciyaaraha u ololeeya ayaa waxa uu amaanay garoonkan casriga ah marka waxaan u duceynayaa garoonkan runtii aan oran karo waa garoonka ugu weyn maxay ahayd caasimada ka dhisan waqti xaadirkan garoomo fara badan oo runtii anagu maxay ahayd ka qayb galay wuxuu noqonayaa garoonkii ugu weynaa maxay ahayd ugu ballaarnaa caasimada ka sharaf weyn bay noo tahay aniga iyo maayarkaba inaanu ka soo qayb galno caawa furitaankiisa waxa kale oo runtii muhiimad weyn leh inuu akademiyad ku daray oo aanu ahayn meel lagu ciyaaro akademiyaduna sida og tahay maayar waxa weeyaan meelaha ay ciyaaruhu kasoo aasasmaan mid kamida mas'uuliyiinta shirkadda Safar Zame ayaa isaguna munaasabadaasi hadal ka jeediyay mulkiilaha garoonkeenan ciyaar same oo runtii ah nin dhalinyaro anagu isku soo kooxwaan ahaan jirnay runtii waa nin laaciba oo player oo mataqaana kubadda aad ugu wanaagsan buu ahaa mataqaana haddana waa mulkiilaha garoonkan aadka u weyn aadka u quruxda badan leh runtii in badan buu ka soo shaqeeyay walaalkeen Jilani inoo sheegay in badan buu soo mataqaana tala badsaday maantana aynu u joognaa furitaankiisii aad iyo aad baan u soo dhaweynanaa ugu dambeyntii duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko ayaa soo dhaweeyay garoonkan waxaanu halkaasi ka furay ciyaartii ugu horeysay ee koob loogu magac daray Soltelko Cup kunihaantii mahad ballaaran baan u jeedinayaa mulkiilaha garoonkan ya akademiyadan oo ah waxay nagu cusub in akademiyad loo sameeyo dhalinyarta taas oo garoonkana sidii hore loo sheegay ka weyn yahay kuwii hore kana ballaaran yahay insha Allah waxaan u rajaynayaa khayr iyo inuu noqdo meerad wanaagsan soo saartana iyo dhalinyar badan oo waxbarashada garoonkan iyo akademiyada ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee laga hirgeliyo gudaha caasimada Soomaaliland ee Hargeysa